qaybtan labaad waxaan isla eegaynaa waxaan la kusoo sheegnay inuu qofku xogtiisa ilaashado xog sax ah ka hor intaan u xarayn inuu informationkiisii warqadaana hadha uu keep garayo informationka oo daabacdo meelna dhigto. waxaa jira dadka qaar magaranaysa matal ahaan caqabada ku dhacda qof ay xogtooda u dhiibanayaan xogta qofku ka xoreeya ama hadhow markuu helo wadu doono lacag wax weydiinaya qofkii markaa taana si aan kugu dhicin waa inaad ka taxadirtaa. jawaabtana waxaa la eegaa sanad walba 2025ka May baa eeganaysa jawaabta loo tiri hadda 2026 hayst 2025ka xira jawaabta eeganaysa insha Allah. marka informationka lagaa rabo inaan ku arkayna maxaa laga rabaa inaad ku buuxisid qodobka koowaad oo magacaagii oo dhammaystiran last name oo kale first name iyo middle name ka qaabka kugu qoran yahay baasaboorka ama shahaada haddaan baasaboor lahayn shahaada qaabka kugu qoran yahay baa lagaa rabaa. marka waa inay iswaafaqaan xogtan xiriirsiintii baasaboorka waxaad matalaan hadda genderka oo kale lagaa rabaa xilligaa dhalatay bishii maanta sanadkii meeshaas ku dhalatay wadankii iyo wadamadii eligibility-ga yani wadankaaga in loo ogol yahay wadamadan kor kusoo xusnay waa wadamadan loo ogolayn wixii kasoo hara that means nigo la inoo ogol yahay. halkaa su-aalo la soo weydiiyey frequently asked questions oo kale ama FAQ oo kale waad weydiin kartaa su-aalo linka kusoo dhufan kartaa buug waxaa soo dhigay group. halka waxaa ka eegi kartaa sawirka waa muhiim in sawir dhawaan gasho yahay lama doonayo sawir sanadkii hore ah lixdii bilood u dambeeyay hadaad gashay uu iskaan ku yahay baa la ogol yahay yani markuu iskaanid yahay iyo markuu digital hadda gashay wax fiican dhawaan gasho sawirka marka xariisinaysa. marka lagama baahna sawir sanadkii hore aad ku xariisay sawir aan shuruudi buuxin waxaa ugu badan dadka la hada wax ka mid ah waa sawirka. marka sawirkaad isaga ilaasho qaybta tan waa meel adresski meeshaad ku nooshahay xogtaada informationkaaga baad gelinaysaa wadankaad ku nooshahay baad ka dooranaysaa telefoon numberkaaga optional email address waa muhiim dadka u badan emailka iska khaldaan marka iska ilaali. haddaad xataa guuleysatid cid kula soo xiriiraysaa ma jirto laakiin adigu inaad la socotaa processka oo marka qaabka loo raaco jawaab inaad eegto. marka qaybta halkaas ku joojinaynaa.